بسم الله الرحمن الرحيم إميكا waxaan u eegaynaa ama casharkeena maanta waxaan ku eegaynaa qaabka aan u bedelayno website-keena information-kiisa magaciisa halka magaca uu leeyahay waxaan doonaynaa ama rabnaa inaan ka bedelno magaceena caadiga ah aan u bixinay ee ahaa Maxamuud Xuseen Cabdi inuu noo soo dhigo yalla site-keenu ka noo soo dhigo information halka inoo yaala inuu noo soo dhigo aynu baahanahay kadib waxaan sameynaynaa inuu tagaynaa halkan waxaan u tagaynaa qaybtii setting sites.php waxaan sameeynaa function cusub aan leenahay function cusub aan bixinaynaa function waxaan u bixinaynaa markaa settings waxaan dhexdeynaa hal variable oo val la yidhaahdo waxaan leenahay markaa variable cusub select dps equal mysql query select all from site settings setting site kaasana kasoo dooranaynaa waxaan leenahay row equal function cusub oo row nidhi row equal and select and mysql fetch array ama waad bedeli karaysaa waxaad isticmaali karaysaa object fetch object aan leenahay markaas select dps hagan haddana waxaan leenahay row 1 mid kale equal row markaan isticmaalayno object fetch object saasaan samaynaynaa aan leenahay functionka val aanu keenaynaa halkan intaasaan usoo qaadaynaa marka halka waxaanu keenaynaa header include baan leenahay halkan include markaan leenahay waxaanu bedelaynaa qaybta intaasaanu keenaynaa leenahay intaa headerka inoo keen include intaasaanu soo bedelnay halkan hadda waan masaxaynaa haggii title ku qoran tahay waan masaxaynaa waxaanu soo dhigaynaa markaa equal intaa inoo xidh waxaan soo dhigaynaa halkan setting site name site name baan soo dhignaa halkan waxaan leenahay settings site name ka waxaan doonayaa si koobigan waxaan ku sameynaya mar walba si aan magacii aan inooga bedelmin intaasaan soo qaadanaynaa halkan inoo save garee waxaan imanaynaa haddaba source code-ka waxaan soo dhex dhigaynaa waxaan leeyahay header halkaasaan soo dhex dhigaynaa intaa iyo calaamad waanan xidhaynaa code-kaas markaan soo refresh garayno waa inuu noo soo dhigaa magacii markii aanu qaadanay save all halkan maxaa naga khaldan settings fan settings val select all from setting site صح ويان row equal mysql fetch and array صح ويان halkaasaan qaribnay waa return row val inoo soo refresh garee waxaad arkaysaa inuu magaciina siiyey Maxamuud Xuseen Cabdi haddaynu tagno halkaan u bedelno aanu ku qorno halkan kusii darno galyane aan kadib idhaahno update ad ku guulaysatay buu yidhi halkan markaan tagno aan soo refresh garayno
waa inaan kusoo daraa markaa garyare. marka dul istaagto waxaa arkaysaa inuu garyare kusoo daray. waxaan samayn karaysaa dhigi karaysaa view page source. title markaad eegtid title maxamuud xuseen cabdi garyare wakaa kusoo daray. waxaan u baahannahay haddana inaan markaa qeybta headerka aanu kusoo darno name contentkaas. contentka laftigiisa waan kusoo hagaajinaynaa. waxaan leenahay markaa intaasoo kale soo qaadayna halkaa inaan soo dhig. waxaan leenahay halka waanu bedelaynaa. waxaan u bixinaynaa setting site xaggu ahaa setting description. markaan soo qaadna haddana view and page source descriptionskiisime content search engine halku ka qaatay source engine halku ka soo qaatay waa kan my first waxaan kartaaba first listen. waxaad oranaysaa markaa update site info. xagga laftigeeda markaan soo update garayno aan idhaahno find again amaan idhaahno dab inagu sii informationka view page source. waxaad arkaysaa inuu haddana ina siinayo search engine. sababta waa maxay search engine inoo siinayaa? search engine google first lesson maamna badgarayn guulaysatay buu yidhi. soo refresh garee websiteka laftigiisa soo refresh garee websitekeenii. kadib waxaan leenahay view page source. xaggay ahayd content search engine wuxuu noqday imika first lessons ayuu noqday. saas oo kale ayaanu kusii wadaynaa. markaas waxaan usii baahannahay keywords iyo status. statuskaas ayaa muhiima imika. statuskaas waxaan leenahay xaggan aan kusoo bixinaynaa ama aan kusoo daraynaa. markeeda hore aan leenahay if intaa inoo samee. iftaas maxaan uga jeednaa? waxaan leenahay if statuskaas halkaa inoo dhig. statuskaas waan iminka u jeednaa. waxaan leenahay if kaasi uu leegyahay 2 waayo 2 wuxuu ahaa ly2 wuxuu ahaa tuuga wuxuu ahaa markaa uu xidhan yahay markaa macneheedu weeyaan. haddii markaa uu xidhan yahay waxaad inoo soo qaadaysaa baan leenahay. hadduu xidhan yahay waxaad inoo soo qaadaysaa message close site baad inoo soo qaadaysaa meesha inoo soo dhigaysaa. iyo next intaas waa inoo soo dhigaysaa. meesha markaa waxa meesha ku jira gebigeedaba waad ka baxaysaa. aan soo qaadno aanu dhigno 2 weeyaan wuxuu diidan yahay. disactive weeyaan laakiin active hadduu yahay
update soo refresh garee sidiisa caadiga ahayd markaa waa inuu shaqeeyaa laakiin mushkiladu waxa weeyaan settings msg close site muxuu usoo dhigi waayey msg close site muxuu usoo dhigi waayey settings msg close site muxuu usoo dhigi waayeen eegaynaa settings disactive update info index.php mu soo dhigin fariintii iyo wixiiba maanu soo dhigin halkana waxaan leenahay echo div class error taasaad inoo siinaysaa xaggana kalena haddana waad ka xidhaysaa div intaasaan uga baahanay markaa inoo sameeyo naga raalli ahow wuu soo qoray halkan laakiin waxaan u baahannahay divkan inuu soo saaro classkan div classes equal error okay weli maanu soo saarin laakiin xagga waanu ka samayn karaynaa waxaanu samayn karaynaa kusoo dari karaynaa halkan halkay ahayd halkan wuxuu diidan yahay intan uu diidan yahay intan noo soo qaad hoostaan soo dhigaynaa intan noo soo qaad meelana soo dhigaynaa halkana soo dhigaynaa naga raallahu buri halkan markaan waxaan ku soconaynaa errorkiisi baan ku soconaynaa error xisaan buu soo dhigay waan halkaa markaa kusoo sameynaa aan soo bedelnaa settingskiisa ama mise fariinta qofku soo bixinayo shaqo ayaa ku socota webkan update inoo soo update garay halkana ama inoo soo refresh garay waanu intii aan qornay inoo soo qoraa naga raalihow shaqo ayaa ku socota webkan marka halkan kale aanu ka hagaajino aanu ka dhigno disactive ama active caadiya and update site information idhaahno waa inay fariintani meesha ka baxdaa sidiisii caadiga ahayd markaa uu soo baxo waa kaa sidiisii caadigeedasi noogu soo baxay qaybtan settingska iyada laftigeeda saasaan kaga gudbaynaa wixii kale habeenay aad u aragtay aad inay habeen karaysid baa sii habayso sii qurxiso aday ku taalaa film inaad messagekaad qurxisid iyo in kaleba halkan halkaas oo kale u baahnayn inaan mid ka dhiibano xabad kaliya ka dhiibano oo ah marka uu qofku informationkaan dhamayno settingskaan dhamayno waxaan u baahannahay inaan soo update garayno aan idhaahno waxaan u baahannahay inaan halkan soo idhaahno echo meter and html view contentskiisu waa refresh weeyaan and contentskiisa waa 1 second oo url-kiisuna yahay url-kiisuna waxa weeya markaa aan leenahay setting site waxaad leedahay markaa copy link location innagu waxaan uga baahanay waa intaa settings .php
waad inoo xidhaysaa marka halkana waxaad leedahay ext markaan kusoo celino informationka site settings aan halkan wax ka bedelno aan idhaahno markaa gaadhiyare ama halkan waxaad oranaysaaba somehouse.com view site information ku guulaysa shaqadaas sida arkaysa imika inoo soo dhigay laakiin hal cillad baa jirta cilladaas waxa weeyaan markaan halkan joognay wuxuu inoo soo dhigay shaqadaas waad ku guulaysatay laakiin informationkii dhamaystiran imanoo siin taana cilladeeda waad sixi karaysaa insha Allah taala sida kan kale ku saxnaa oo kale meel hoose aad soo dhigaysaa si markaa informationka aad markaa sida doonaysid ugu guulaysatay saasay ka fadhiisanayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.